madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi wafdi hogaaminaya saaka ka baxay garoonka diyaaradaha cigaal ee magaalada Hargeysa. wafdiga madaxweynaha Soomaaliland ayaa ku sii jeeda dalka Jamhuuriyadda Djibouti. safarka madaxweynaha Soomaaliland ee saaka ayaan loo ogolaan saxaafadda kala duwan. hase yeeshee war ka soo baxay qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay in wafdiga madaxweynaha Soomaaliland ee dalka Djibouti ay halkaasi u tageen sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliland iyo Djibouti. iyadoo sidaas oo kale warkaasi kooban ee ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland lagu sheegay in wafdiga madaxweynaha Soomaaliland ay maanta gudagali doonaan hawlaha ay halkaasi u tageen. waxaana xubnaha wafdiga madaxweynaha safarkaasi ku helaya kamida wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamed Xeer Faraton, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye, iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Xasan Gaafadhi. marka laga yimaado warkaasi ka soo baxay qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland ee ku saabsan in madaxweynaha Soomaaliland halkaasi u tagay si xoojinta xiriirka iyo cilaaqaadka siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Djibouti, ilaa haatan lama hayo warar faahfaahsan oo ku saabsan safarkan maanta madaxweynaha Soomaaliland wafdigiisu ay ugu kacotimeen dalka Djibouti ayaa wuxuu noqonayaa safarkii labaad ee madaxweynaha Soomaaliland wafdi hogaaminaya ku tagaan dalka Djibouti tan iyo muddadii uu hogaaminayay Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Cabdirasaaq Axmed Cabdi Koronto, TV.